tiraahdaa meel ka muuqo ama ka maqnaaw. magacayga waxaa la dhahaa Saciid Barre, waxaan joogaa magaalada Rochester, xaafadda Rochester Square. insha Allah tacaala waa wiigii ugu dambeeyay ee votka macnaha doorashooyinka la aadayay. berri Isniinta ilaa iyo Sabtida ayaa ugu dambaysa early votingka. maalinta Talaadada oo 3 bisha ay tahay Novemberna waa maalinta ugu dambaysa doorashada dhacayso. marka waa noo muhiim, waxaan u soconnaa ama guryaha u qaraacinaa in aan dadka Soomaalida wake up ku sameeyno, kicinno, maadaama waddankan aan degannahay 20 sano in ka badan oo carruurteenna iyo carruur ku sii dhaleen. marka mar walba in loo taliyo waa laga fiican yahay in aan ka qayb qaadanno meesha lagu tashanayo, miiska wax lagu qaybsanayo, maadaama aan waddankii degannahay, carruur ku dhalnay, carruurteenna carruur ku sii dhaleen. aan ka qayb qaadanno votka waa noo muhiim, codadkiina waa muhiim. insha Allah tacaala dhammaantiin waxaan idin leeyahay ka qayb qaata votka, codadkiina dhiibta insha Allah tacaala. waxaan u voodgaraynayna waxaa ka mid ah dhibaatooyinka naga haysta ee waxbarashada, sida maaragtay immigrationka, justice-ka oo maaragtay cadaaladda, iyo carruurteennii oo waxbarashadoodii iyo youth programkii carruurtii youthka sidaan u soo ceshan lahayn ay ugu soo noqon lahayd طريق المستقيمka, طريقة toosan. marka insha Allah tacaala waxaan idin leeyahay qof walba ha vote gareeyo. qofkii doonaya in la caawiyo votka in la caawiyo ha soo waco telefishinkan maaragtay Feero iyo kooxdiisa. waxaan u samaynaynaa insha Allah tacaala raid iyo dad caawiyo. marka codadkiina waa muhiim, ha laga qayb qaato. one week noo haray, weegan aan wada kacno, qof walba qofka kale ha dhiirigeliyo. codkiina ayaa wax ku noqonaysaan insha Allah tacaala. qof codkiisa laga xiga ma leh, qof walba codkiisa meeshuu rabo u baxsan karaa, laakiin codkaada inaad dhiibato waa muhiim. waxaan la shaqaynayaa odayaasha magaalada, Xaaji Xuseen Jimcaale, dhalinyarada. marka waxaan rabnaa dhalinyarada inaan wax ka dhigno, ay wax noqdaan. marka insha Allah tacaala dhalinyarada inay ka qayb qaataan, dhalinyarada aan soo saarno insha Allah. jazakallahu khayr.